ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር። ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። raadinta ay Itoobiya ku doonayso inay ku hesho marinbadeed waxay noqotay arrin juqraafi siyaasadeed oo muhiim ah oo ka jirta Bariga Afrika, taasoo saameyn ku yeelatay diblomaasiyadda gobolka, iskaashiga dhaqaale iyo xaaladaha amni. Tan iyo markii ay Eritrea xorriyaddeeda qaadatay sanadkii 1993, Itoobiya waxay noqotay dal aan lahayn bad, sidaas darteedna waxay si weyn ugu tiirsan tahay dekedaha dalalka deriska ah, gaar ahaan kuwa ku yaala dalka Djibouti. Arrintani waxay sii kordhisay doodaha ku saabsan helitaanka marinbadeed, xasilloonida gobolka iyo isdhexgalka dhaqaale ee ka dhex jira gobolka. Haddaba sidee ayuu dadaalka Itoobiya ee ku aadan helitaanka marinbadeed u saameynayaa xiriirada juqraafi siyaasadeed iyo isbedelada dhaqaale ee Bariga Afrika iyo Geeska Afrika? Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa sida dadaalka Itoobiya ee ku aadan helitaanka marinbadeed uu u saameynayo xiriirada juqraafi siyaasadeed, iskaashiga dhaqaale ee gobolka, iyo xaaladaha amniga ee Bariga Afrika iyo Geeska Afrika. Waxaan sidoo kale falanqeynaynaa taariikhda ka dambeysa sida Itoobiya u noqotay dal aan lahayn bad, saameynta dhaqaale ee ku tiirsanaanta dekedaha, xiisadaha iyo iskaashiga juqraafi siyaasadeed ee ka dhasha arrinta marinbadeedka, iyo sidoo kale saameynta guud ee ay ku leedahay xasilloonida iyo isdhexgalka gobolka. Haddaba ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Tan iyo markii Itoobiya ay noqotay dal aan lahayn bad kadib madax-bannaanidii Eritrea, Itoobiya waxay la kulantay caqabado waaweyn oo dhaqaale iyo juqraafi siyaasadeed oo la xiriira helitaanka marinbadeed. Helitaanka badda waa arrin muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah, kobaca dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Hadda Itoobiya waxay si weyn ugu tiirsan tahay kaabayaasha dekedaha ee Djibouti, halkaas oo ay maraan inta badan badeecooyinka ay soo dejiso iyo kuwa ay dhoofiso. Ku tiirsanaantani waxay dhalisay doodo muhiim ah oo heer gobol ah oo ku saabsan helitaanka waddooyin kale oo marinbadeed ah, iyo sidoo kale saameynta juqraafi siyaasadeed ee ballaaran ee arrintani ku leedahay Bariga Afrika. Arrintani ma saameyso oo keliya horumarka dhaqaale ee Itoobiya, balse sidoo kale waxay saameyn ku leedahay xiriirada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee ka dhex jira dalalka Geeska Afrika. Taariikh ahaan, Itoobiya mar walba ma ahayn dal aan lahayn bad. Dabayaaqadii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad, Itoobiya waxay lahayd marin ay ku gaarto Badda Cas iyada oo sii maraysa dhulal markii dambe ka mid noqday Eritrea. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda juqraafi siyaasadeed si weyn ayay isu beddeshay kadib burburkii nidaamkii militariga ee Itoobiya sanadkii 1991 iyo madax-bannaanidii Eritrea ee xigtay ee sanadkii 1993. Markii Eritrea ay madax-bannaanida qaadatay, Itoobiya waxay lumisay marin toos ah oo ay ku gaarto Badda Cas, waxayna noqotay dalka ugu dadka badan dunida ee aan lahayn bad. Bilowgii, Itoobiya waxay sii waday isticmaalka dekedaha Eritrea sida Massawa iyo Asab si ay u adeegsato ganacsiga caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka labada dal oo xumaaday ayaa ugu dambeyntii keenay dagaalkii ba'naa ee Eritrean-Ethiopian War. Kadib dagaalka, Itoobiya waxay u wareejisay waddooyinkeeda ganacsi ee ugu muhiimsan dekedaha Djibouti, taasoo tan iyo markaas noqotay albaabka ugu weyn ee ay Itoobiya ugu xiranto badda. 20kii sano ee la soo dhaafay, Itoobiya waxay sii kordhaysa ugu tiirsaneyd Djibouti ku dhowaad dhammaan ganacsigeeda badeed. Inkasta oo nidaamkani bixiyay xasillooni iyo kalsooni dheeraad ah, haddana wuxuu abuuray heer sare oo ku tiirsanaan dhaqaale iyo istiraatiijiyadeed. Sidaas darteed, siyaasiyiinta Itoobiya waxay bilaabeen inay raadiyaan siyaabo kala duwan oo ku aadan helitaanka marinbadeed, iyaga oo sahaminaya dekedo kale oo ku yaala dalalka deriska ah. In Itoobiya ay tahay dal aan bad lahayn waxay saameyn dhaqaale oo weyn ku leedahay dalkan dadkiisu kor u dhaafayo 120 milyan, sida ay muujinayaan daraasado dhaqaale oo kala duwan. Dalalka aan bad lahayn waxay inta badan la kulmaan qarashyo gaadiid oo sarreeya, waqtiga keenista oo dheer, iyo caqabadaha ganacsi ee kordha marka loo eego dalalka xeebaha leh. Caqabadahani waxay xadidi karaan tartanka suuqyada caalamiga ah, isla markaana kordhin karaan qiimaha badeecadaha la soo dejiyo. Itoobiya ku tiirsanaanta deked weyn oo keliya waxay abuuraysaa nuglaashooyin dhowr ah. Qiyaastii 90 ilaa 95% ganacsiga Itoobiya wuxuu maraa dekedaha Djibouti, taasoo micnaheedu yahay in wax kasta oo carqalad ku yimaada waddadan, ha ahaato mid siyaasadeed, mid dhaqaale, ama dhanka kaabayaasha, ay si weyn u saameyn karto dhaqaalaha Itoobiya. Itoobiya iyada oo ka duuleyso inay hoos u dhigto khatarahan,
Suudaan waxay maalgelin weyn ku samaysay kaabayaasha gaadiidka ee isku xira caasimadda Addis Ababa iyo dekedaha Djibouti. Mid ka mid ah mashaariicda ugu muuqdana waa tareenka Addis Ababa ilaa Djibouti, kaasoo si weyn u hagaajiyay waxtarka gaadiidka xamuulka ee labada dal. Si kastaba ha ahaatee, isku xidhnaanta ganacsi ee waddadan keliya weli waa walaac istiraatiiji ah. Iyada oo la aqoonsan yahay caqabadahan, Itoobiya waxay dadaal ugu jirtaa inay ballaariso helitaanka dekedaha kale ee gobolka, oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliya iyo Kenya. Tusaale ahaan, Itoobiya waxay sahamisay iskaashi xagga saadka ah oo lala yeesho dekedda Berbera ee Somaliland iyo mashruuca Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport ee Kenya. Mashaariicdan waxay ujeedadoodu tahay in la yareeyo ku tiirsanaanta Itoobiya ee Djibouti, iyadoo la xoojinayo isku xidhnaanta dhaqaale ee gobolka. Dadaalka Itoobiya ee helitaanka marinbadeed wuxuu leeyahay saameyn weyn oo ku saabsan diblomaasiyadda gobolka. Geeska Afrika waa gobol istiraatiiji ah oo ku yaal meel u dhow marinada waaweyn ee maraakiibta adduunka ee isku xira Yurub, Bariga Dhexe iyo Aasiya, iyada oo loo marayo Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Xakamaynta dekedaha iyo kaabayaasha badda ee gobolkani waxay leedahay muhiimad siyaasadeed oo aad u weyn. Xiriirka Itoobiya la leedahay dalalka deriska ah inta badan waxaa saameeya baahideeda ah helitaanka marinbadeed. Tusaale ahaan, Itoobiya iyo Djibouti waxay leeyihiin xiriir siyaasadeed oo dhaqaale oo xooggan, sababtuna waa isku tiirsanaantooda wadajirka ah. Djibouti waxay ka faa'iidaysaa dhaqaale ahaan iyadoo u adeegta sidii albaabka ugu weyn ee ganacsiga Itoobiya, halka Itoobiya ay ku tiirsan tahay kaabayaasha dekedaha Djibouti ee ganacsigeeda caalamiga ah. Sidoo kaleeto, isku dayga Itoobiya ee kala duwanaanshaha marinbadeedka ayaa sidoo kale saameeyay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay ciyaartoyda kale ee gobolka. Heshiisyada iskaashiga ee la xiriira horumarinta dekedaha iyo saadka waxay xoojin karaan wada shaqayn dhaqaale, laakiin sidoo kale waxay abuuri karaan xasaasiyad siyaasadeed, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in la go'aamiyo madax-bannaanida dhulka. Intaa waxaa dheer, higsiga Itoobiya ee badda waa mid ku milan danaha awoodaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo ku leh joogitaan istiraatiiji ah oo militari iyo dhaqaale gobolka. Tusaale ahaan, Djibouti waxay hooy u tahay saldhigyo militari oo caalami ah oo dhowr ah, sababtoo ah booskeeda istiraatiijiga ah ee u dhow marinbiyoodka Bab el-Mandeb, mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee badda adduunka. Itoobiya, iyadoo raadinaysa marinbadeed, waxay sanadkii 2024 heshiis la gashay Somaliland si ay u hesho kirayn 50 sano ah oo ku saabsan 20 kiiloomitir oo xeeb ah si loogu dhiso saldhig badeed. Soomaaliya waxay arrintan u aragtaa jab sharci darro ah oo ku saabsan madax-bannaanideeda, maadaama aysan aqoonsanayn madax-bannaanida Somaliland. Soomaaliya waxay cambaaraysay heshiiskaas, taasoo keentay xiisado gobolka ah oo sare, halka Turkigu uu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo si loo yareeyo khilaafka. Inkastoo Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen dhammaadkii 2024 inay joojiyaan khilaafkooda, xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee Somaliland weli waa arrin muhiim ka ah dhanka Itoobiya. Khilaafkan ayaa kordhiyey xiisadaha Geeska Afrika, iyadoo jirto walwal ku saabsan ammaanka gobolka. Dalal kale oo dhowr ah oo ay ku jirto dalka Masar ayaa taageeray dhanka Soomaaliya, taasoo xaaladda u rogtay mid xasaasi ah. Ugu dambeyntii, Itoobiya waa mid u maraysa dariiq walba si ay u hesho marinbadeed ay si buuxda u maamusho, balse ma sahlana sida ay si fudud uga hesho hamigaas xuduudaha dhaafay.